السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسولو كورساقون channel magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan maanta muuqaalkan waxa aan kugu soo gudbinayaa sidii aad u sameyn lahayd links ama hyperlinks aad ugu sameyn lahayd HTML page-kaaga ama web page-kaaga markasta oo website la sameeyo website-ku sidaan horeba soo sheegay waxa uu ka kooban yahay web page tusaale ahaan home page about contact us waxyaabo saas ah links ayaa isugu xidhan kuwa sidaa darteed waxa aynu eegi doonaa maanta sidii aad link u sameyn lahayd casharadii hore soo dhignay dhammaan waxaad ka heli doontaa YouTube-ka ama qaybta playlist-ga ayaad si fiican uga heli doontaa YouTube-ka maanta course-kii hore halkii hore waan joojinaynaa waxaynu bilaabanaa inaynu furno file cusub aan samaysano oo aynu kuwii hore iska dayno maanta waxaan samayn doonaa file cusub waxaynu u bixin doonaa waynu save garaysan doonaa oo waxaan tagi doonaa file ka bacdina save ayaan odhan doonaa marka aan save nidhaahno waxa aynu u bixin doonaa practice baan u bixin doonaa html ha iska iloobin inaad qorto .html waxaa doonto magaca u bixi laakiin .html ha iloobin haddii kale waxaa wax shaqaynaya maaha kabacdi waxaan taabananaa save ayaan taabananaa sidoo kale kusoo furanaa browserkeena waxaan tegi doonaa halkan folderkeenii aynu samaysanay halkan waa kan practice inoo soo galay kabacdi double click ayaan siinanaa hadda waxba kuma jiraan aan ka ahayn magaciisa oo title-keena ugu jira waxaynu sameynanaa waxaan furanaa bracket h markaan qorno inuu isagu inta kale soo saari wayaan ma waxaad doonaysaa h1 oo kuwan hore inuu soo sheegnay labadana waynu arki doonaa laakiin html ayaan doonayaa baad odhanaysaa halkan waxaan u bixinaynaa practice baan bixinaynaa magaca title-ka practice 1 baan bixinaynaa ama practice 6 ba waxaad doonto kabacdi waan save garaynaynaa control s ayaan taabananaa bodygan aan imananaa bodygan ayaan wax walba gashan doonaa sidaan hore soo sheegay waxaan halkan gelino baan muuqan doonaa tusaale ahaan halkan waxaan soo gelinayba link baan doonaynaa markaynu click siino ama hyperlink markaynu click siino inagu tuura meel kale baan taabananaa markaan taabano ayaa ah tagga linkiga waaba ka u sareeya click uma siinana href baa kusoo baxaysa haddii ayna kusoo bixinna adigu gacantaada ku qor oo waxaad isticmaalayso text editors kale ama code editors kale sida bracket aad isticmaalayso href waa inaad adigu qorto halkan waxay ka dhigan tahay eedani waa linki waana taggii koobaad waa intaas oo dhan ayaa taggii koobaada kanna waa taggii labaad halkan labada dhexdooda wixii qoraalkii click la siin doono ayaynu gelin doonaa oo linkigu waa wax click la siinayo oo meel kale kugu tuuraya halkanna hrefka halkan labada yar quotation dhexdoodana waxaynu gelin doonaa linkiga aan meesha doonano inaynu click siino tusaale ahaan linkiga waxaan doonaynaa browserkeena haddaan tagno YouTube oo kale inaanu linkigiisa soo koobisano linkigiisana soo koobisananaaba shayga markaan click siino si YouTube oo tago kabacdi waxaan tagnaa text editor-keeni halkan labadan quotation dhexdooda ayaynu paste ku dhex odhananaa okay halkan waxay noo soo galay link haddii aynu imika save garayno oo aynu tagno browserkeeni halkan waa kan keeni practice 1 ka weeyaan on refresh garayno waxba halkan kuma soo kordhin wax click la siinaya kuma soo kordhin halkan aynu ku qoran hadaba taabo halkan ama riix halkan hadda ayaynu save garaynaa control s ama command s browserkeena ayaan tegnaa refresh ayaan siinanaa halkan maxaa kusoo kordhay haddii aan kusoo zoom gareeyo halkan waxaa kusoo kordhay riix halkan line hoos marsan yahay midabkuna yar blue yahay sidaa darteed waa link haddaynu kan click siinay automatic YouTube-ka ay toos inoo geyn doontaa bal haddaan click siiyo ood aragtaa tabkeenii xaggan sare wuu iska bedelayaa oo YouTube ayuu noqday waxaana inoo soo baxaya YouTube-kii xoogaa netka ayaa yar culus YouTube-kii ayuu toos inoo dhexgeeyay taasi waa mid hadda link ayaan soo gelinay linkiyada aad ayaynu isticmaali doonaa linkigani markaynu click siinay wuxuu ina dhexgeeyay YouTube-kii oo tabkeenii ayuu ka dhigay YouTube haddaba ma jirtaa meel marka click la siiyo tabkaagadoo jooga kugu tuurasa haddana tusaale ahaan imika haddaan kayga hore ku noqdo halkan click siiyo isla tabkan aan joogno ayaa noqon doona YouTube sidaa darteed haddaan imika click siiyo kani wuxuu noqonayaa YouTube aragta okay YouTube ayuu noqday laakiin anigu taama rabo waxaan doonayaa isagoo kani taagan inuu halkan tab cusub iska furmo balaas taasoo kale uu saa furmo uu YouTube noqdo sidaan taa ku sameynanaa
waxaan sameynaynaa linkigaas hore haynoo jiro mid kale ayaan sameynaynaa tusaale ahaan waxaan qoranaa a kale ayaan qoranaa kabacdin enter ayaan siinaynaa href wixii aan soo koobiyeysanay ayaan gashananaa in markii hore soo koobiyeysanay halkan ayaan taabananaa click here oo kale aan gelinaynaa click here ama riix halkan waa isla halkii uun kabacdina control s ayaan taabanayaa hadda labadan waa isku mid waxba kuma kala duwana haddaynu kan dambe laftigiisa click siino haddaynu kan laftigiisa click siino og labadiiba way israaceen si aynu labadan u kala tuurno aynu u kala kaxayno waa in aynu adeegsanaa br halka dambe waa inaynu br geyno br haddaan enter siiyo hadda laba line oo ishoos bay noqon doonaan aan refresh yiraahdo marka laba line oo ishoos yaala ka sare waa kii hore kan dambana waa kii markii dambe aan sameynay labaduba haddaynu click siino isku si ay ugu tagi doonaan youtube-ka oo taabkan ay bedeli doonaan laakiin waxaan doonaynaa in uu taab cusub furmo si aynu taa u sameyno waxaan tegaynaa halkan opening tagga intan oo dhan waxa weeyaan opening tag oo yar qaan gaadhay ama yar weynaaday baan odhan karnaa laakiin halkaa quotationka dabadooda ayaynu ku qoranaa target ayaynu enter siinaynaa labada quotation dhexdeeda ayaynu ku qoranaa blank baan ku qoranaa kabacdi waan save garaynaynaa haddaba kan click here ay noogu qoran tahay linkigan ama hyperlinkigan markaynu click siino wuxuu furi doonaa youtube cusub oo tab cusub ay furi doonaa tusaale ahaan kan haddaynu refresh nidhaahno oo aynu click siino halkan waad aragtaa tab cusub ay ka furay halkana keeni hore inoo furan yahay halkana youtube ayaa ka furmaya aan kugu celiyo kan hore aan taabta bal kan hore haddaan taabtay isla kan unba isbedeli ag kan haddaan taabtay kan unba wareegi oo youtube isku bedeli laakiin haddii aan kan kale taabto aan ka noqdo hadda kan aan iska cancel gareeyo kan haddaan taabto halkan tab cusub ayaa degdeg usoo boodaya oo youtube ah aad aragtaa sida casharkan maanta waxaad ku baratay sidii link loo sameynayay waad ku mahadsantahay daawashada la soo casharada dambe share like iyo subscribe ha ilaawin